madaxtooyada magaalada xamar ku taalla in dowladda Soomaaliya mar kale la keeno Abdullaahi Yuusuf madaxweynaha Puntland markaas ahaa ayaa mas'uul ka ahaa sidii loo shalayna way xukumeen dowladda Soomaaliyeed reer Puntland bari inay xukumaan wax ka hortaagan ma jiro dal marka xukunkiisa uu diyaar ku yahay maxaad uga tagaysaa dal dad aad rabtid inaad xukuntid oo diyaar lagu yahay xagee ka aadaysa ayaamahan dambe arinta xoogaa waxa sii adkeeyay xasan sheekh intuu yimid waa wada ognahay xasan waa shakhsi shalayna waa in barina waa tagayay in wadankii Soomaaliya ku kala go'o xasan dartiisana sax ma aha arinta jeynaya reer Puntland dadka Soomaali dib u dhisi doona hadii la hayno magacooda dowladnimada soo celiya inay hormood u noqon doonaan hadii la hayno ilaahay ka soo xalku siyaasiyiinta gacantooda ayuu ku jiraa deg hadaydan u heshiin oo isugu imaan oo idan ka wada hadlin war dalka maxaynu ku badbaadin karnaa idina badbaadimaysan